السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هبين ونكسن صاحبة قيمة هي قدرين تمدن هالكن سيدة توسكار نقل السعودة قل كميديا اسكسون نقد ونكسن وحيسة بدن ورجينا يا إذنكو عافمات قبا إن آد مركلة هالكن أتكسو لابتين سي آد ولا سعوتان حقها إنو هالكن سوق لنا مركو هري وحان شاء الله هاي صاحبة qiimaha iyo qadarinta mudan ee gaar ahaan kuwa sida tooska mar walba nagula garab taagan dib u dhiska dalkeena hooyo waxaan leenahay walaalayaal waad mahadsantihiin Allah idin wada xafido sidoo kale waxaan jecelnahay in dhinacyada aan ku boorino in guud ahaanba aan markaa idinka aragnay inaad diyaar u tihiin inaad ka qayb qaadataan dib u dhiska dalka sida mawduuca ka muuqata dhinacyada waxaan doonaynaa in aan caawa halkan idinkula wadaagno magaalada Addis Ababa ee caasimada wadanka Itoobiya oo laga dejiyay hubkii ugu badnaa iyo waliba dhinacyada diyaaradaha dagaalka oo xilligan loogu deeqay dawladda Itoobiya maxaad ka ogtahay talaabooyinka toddobaadka soo socda abi uu qaadi doono maadaama 16 casho uu qabsaday xilligan ay ka harsan yihiin wax ka yar 10 maalmood maxaad xilligan kala socotaa dawladaha xilligan sida tooska ugu soo biiray dagaalka abi uu kula jiro TPLF dawladda Ruushka Turkiga iyo sidoo kale dawlado badan oo ay markaa xilligan Mareykanka xitaa qayb ka tahay waxa ay ogaadeen in guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada TPLF guud ahaan ay markaa saameyn weyn ay ku yeelan karto haddii dagaalkaasi ay ku adkaadaan geeska Afrika xogtu waxa ay tilmaamaysaa in guud ahaanba xilligan hubkaasi ay ku deeqday dawladda Ruushka oo iyadu xilligan markaasi doonayso inay garab istaagi ugu weynaa ay u muujiso Abiy Ahmed Ali abi oo xilligan ku sugan furuntii hore ee dagaalka waxa hubkaasi la wareegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo shaqada ra'iisul wasaaraha sii haynaya xogtu waxa ay tilmaamaysaa in guud ahaanba saacadaha soo socda lagu wado in hubkaasi la geeyo furimaha hore ee dagaalka ee uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Ali uu ku sugan yahay xogihii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in guud ahaanba xaaladan ay markaasi tahay mid markaa xilligan guud ahaanba dhinacyada xilligan reer galbeedka ay doonayaan iyaga oo markii hore dhaqaalihii ugu badnaa ku bixinayay TPLF in ay ka guul gaarto dagaalka ay kula jirto Abiy ayaa xilligan waxa u weecdeen dhanka ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya siyaasadda wadanka Itoobiya ee ku dhisnayd taageeridda dhinacyada TPLF waa ay isbedeshay sida ay xoguhu tilmaamayaan siyaasiyiin badan ayaa sidoo kale waxa ay markaa xaqiijiyeen in guud ahaanba xilligan goobaha lagu dagaalamayo oo xilligan ku adkaaday ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Ali xogihii ugu dambeeyay waxa ay tilmaamayaan in laga cabsi qabo in magaalooyin hor leh laga durjiyo dhinacyada TPLF dhankeedu wali ma aysan warbaahinta la hadlin saddexdii maalmood ee ugu dambeysay balse xoguhu waxa ay tilmaamayaan meydad badan dhaawac in xilligan ay uga leedeen dagaalka ka socda waqooyiga wadanka Itoobiya wararkii ugu dambeeyay sidoo kale waxa ay tilmaamayaan dhinacyada in guud ahaanba hubkaasi ay la wareegeen dawladda Itoobiya wali ay markaa ku jiraan qaybta kaydka hubka saacadaha soo socdana markaa laga yaabo in la geeyo dhinaca iyo waliba furimaha hore ee dagaalka ee uu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Ali guud ahaan xaaladda wadanka Itoobiya marka laga tago dagaaladaasi ka socda sidoo kale dhinacyo badan oo shacabka ah iyaguna waxa ay wadaan markan iyo TPLF qaabka dagaalka iyagu loogu wajahay muuqaalka noo share garay haddaba su'aasha aan doonayno inaan caawa idinkaga tagna ayaa waxa ay tahay maxay xilligan dawladda Ruushka ka dhex aragtay in ay ku biirto dagaalka wadanka Itoobiya qaybta hoose ee fariimaha nagula wadaag sidoo kale waxaan doonaynaa in aad nala wadaagtaan aragtidiina ku aadan TPLF iyo Abiy yaa ka guul gaaraya dagaalka ka socda waqooyiga wadankaasi muuqaalka noo share garay tan iyo kulan dambe habeenku ay idin wacnaado